kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha mudan oo ku soo dhawaada barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay faallada akhristaha waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiweli Suro Maxamed. barnaamijkan ayaa ah mid si toddobaadle ah uga bixi doona telefishinka caalamiga ee dowladda deegaanka Soomaalida. waxaan alaaba barnaamijkan ku soo qaadan doonaa oo aan si qoto dheer ugu faaqidi doonaa buugaagta kala duwan ee saameynta ku leh nolosha bulshada ee ay qoreen bahda qalinleyda ee Soomaaliyeed iyo kuwa caalamiga ah. barnaamijkan ayaa waxa ay nagala qayb qaadan doona akhristayaal iyo dad iyagu dhugta buugaagta kala duwan. haddaba qaybta koobaad ee barnaamijka ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa buugga ciwaankiisu yahay Imaam Axmed Gurey oo ah buug taariikheed. buuggan ayaa ka hadlaya hogaamiyihii 15 sano maamulay geeska qaaradda Afrika. haddaba waxaa martiina ugu ah barnaamijkan Axmed Nuur oo ah akhriste ku xil dheer marar badanna isha mariyay buuggan. Axmed Nuur soo dhawow. ad maasantahay Cabdiweli waan dhawahay waan ku faraxsanahay barnaamijkan inaan qayb ka noqdo waliba qofka ugu horeeyay ee lagu casuumo barnaamij noocan ah aan noqdo farxad dheeriya waa shakhsiyan aan dareemayaa runtii waa loo baahnaa TV-gana waa looga fadhiyay barnaamij noocan inuu ku soo daro barnaamijyadiisa waayo dadku waxay u baahan yihiin barnaamijyo dhisaya garaadkooda u fududeynaya tabo uu qofku wax ku akhrisan karo marka barnaamijkan aad buu muhiim u yahay dhalinyarada iyo qof walba oo wax akhrista jecel inuu hormariyo akhriskiisa maskaxdiisana kobciyo sugaalkiisana ballaariyo. aad baa mahadsantahay Axmed Nuur. Axmed Nuur sad ogtahay baa buugga hadda aan toddobaadkan aan gacanta ku hayno waa buugga Imaam Axmed Gurey oo ah buug taariikheed ka hadlaya hogaamiyihii muddo 15 sano ah maamulay geeska qaaradda Afrika. sidoo wada ogsoonahay hogaamiyaha Imaam Axmed Gurey buugaag fara badan baa laga qoray, taariikh fara badan baa laga qoray. hadda waxayna hor yaalla buug uu qoray muwaadin u dhashay deegaanka Soomaalida oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Khaldir Shariif kuna magac dheer Catoosh. waxaan doonayaa buuggan inaan wax ka weydiiyo tusmada buugga hadda aynu u galno waxaan doonayaa inaan intee cutubba ka kooban yahay intee bog buu ka kooban yahay buuggan bal inaad faahfaahin naga siiso bulshada aad barto. Cabdiweli marka la maasan tahay buugga waxaa qoray mid ka mid ah dhalinyarada haldoorka wax baratay runtii arrimaha akhriska qoraalkan u dhaqdhaqaaqa qoraa Cabdiraxmaan Khaldir Shariif Cali oo ku magac dheer ama lagu naanayso Catoosh. buuggan waxaa uu bixiyay ama ugu talagalay inuu ka qoro si kooban Imaam Axmed Gurey halgamaagii Soomaaliyeed ama halgamaagii geeska Afrika. marka Cabdiraxmaan waxa uu galiyay dadaal badan sidoo in uu yani ugu weeleen lahaa afka Soomaaliga taariikhda halgamaaga geeska. haddii inta aynu ka gudubno Axmed buuggeenu doonaynaa inaynu gudaha u galno. saad ogtahay buug kasta oo la qoro marka laga yimaado mahadnaqa iyo hibeynta marka laga yimaado waxaa jirta dadka buugta qora buugga waxay ku daraan tusmada buugga waxay ku daraan afeef wax la yiraahdo. afeefta qoraaga buuggan Imaam Axmed Gurey afeef baa ku taal marka afeeftaas bal sharaxaad kooban naga sii. horta Cabdiraxmaan wuxuu ka afeeftay buuggan inuu lahayn takhasuskiisa يعني ها إنه هين بوجن موضوع وكقر إنه هين تخصص كيسة أو سجوا وحو برتي لو كنا سألته إنك سيدا كحسن بوجيسة وحو كقل انتبي جامعة بحردار كتها على ديانك أحمر هذا علومته مارين تخطرها مسيوينك يهر مركا وارا مركا عبد الرحمن تخصص كيسة ما هين تاريخ مركا وكأفي فنيا wuxuu leeyahay cilmigayga ma aha laakiin lahaansho iyo la jecelo madeed ba ii geynaya ama dareenka damiirkayga ii diraya inaan wuxun ka qoro dabcan inagu maxaan ka afanaynaa inagu waxaan ka afanaynaa si la mid ah dabcan buugii baynu falanqeynaynaa buugii baynu doonaynaa nuxurka ku jira inaan bulshada u gudbino maxaynu ka afanaynaa inagu ku dheen inagu waxaan ka afanaynaa maadaama Cabdiraxmaan ba afeeftay ku dheen horta afeef baynu hortaala oo
waxaan ku afafinaynaa haddii aanu cabdiraxmaan siduu u qoray buugga si ka duwan u macnayno meelaha qaar oo oonan si aan ku talgalahay weliba marka waxaanu ka afafinaynaa qoraaga inuu naga raali noqdo haddii aanu khalad naga dhaco ama ilduuf nagu yimaado intaanu buuggiisa ama buugga u qoray bulshada Soomaaliyeed ilduuf haddaanu ku samayno oo meelaha qaar ilduuf wixii sharaxaada markaanu gudaha buugga ku jirno intaas baanu ka afafinaynaa annagu insha Allah sidoo kale afafta wuxuu ku sheegay inuu ka soo xigtay macnaha taariikhdan iminka aynaan ahayn mid uu isugu alifay uu ka soo xigtay buug fara badan oo laga qoray taana way jirtaa wuxuu ka afanayaa de si aan loo dhihin uu soo dhambalay waana wax de sharci ah in qofku ilaha uu ka soo xigtay wax uu qorayo qoraalkiisa goosgooska ama waxa baritaalaya ee qoraalada baritaalaya ku soo darsay waa sharci inuu sheego okay su'aasha labaad ee doonayay inaan Axmed ku weydiiyo maadaama aad buuggan aad hordhiciisa aad u akhriday tusmada buugga waxyaalahan ku arka waxaa ka mid ah marka afafta laga yimaado oo hadda aad si fiican ugu sharaxday muhiimaddu ay taariikhdu leedahay buuggan wuxuu ka hadlayaa taariikh marka halka maxaa kaaga baxay horta Cabdiweliyow si guud buugga horta intaan hordhiciisa bilaabin si guud fahamka akhristaha daawadaha u soo dhaweeyo buuggan waxaa la dhahaa Imaam Axmed Gurey wuxuu ka kooban yahay 173 bog oo xaashaan ku noqonaysa 86.5 xaashi sidoo kale buuggan waxa uu ka kooban yahay chapteraan cutub ahaan 4 cutub oo cutubka koowaad ugu weyn yahay cabdiraxmaan wuxuu buugga si kooban u sheegay in uu baaritaan kooban oo uu sameeyay ka qoray buugga marka wada taariikhdu dul istaagay wuxuu ku bilowday hibayn afeef iyo hordhac intuuna chapterada intuuna cutubada gelin marka cabdiraxmaan hibayntiisii wuxuu hibeeyay dhammaan qof innaka iyo cid walba oo danaynaysa wax sidoo kale wuxuu ka afeeftay wuxuu yiri takhasuskayga ma taariikh oo inaga sheegay inuu bartay cilmiga maareynta khataraha masiibooyinka iyo horumarka waara waanu wacdo daarinaa haddii uu khalad sameeyo inkastoo khalad badan ku jirin inaguna waan ka afeefano waxaanu dhahnay haddii aanu ilduufno erayga qoraaga inaanu raali noqdaan dadkana daawanaya waxaa ku xigta hordhac buugga wuxuu sameeyay hordhac cajiib ah cabdiraxmaan wuxuu yiri taariikhda isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay taariikhdu waa aqoon qofka nolosha bini'aadanka muhiim u ah oo sheegaysa ama qofka u sheegaysa in uu tagtadiisii ku ogaado timaatadiisa ana wax ku odoroso taagantiisana yani wax ku fahmo oo kula socdo marka cidda taariikhdaas raadkeedu ka lumo shalay waxay soo martay aan garanaynin ma qiimeynayso ama noloshan hadda ay ku nooshahay macna ooma sameynayso mustaqbal lama yeelanayso marka leeyahay marka saas ku soo gabagabay muhiimaddu ay taariikhdu leedahay طبعا weli waxaan ku jirnaa qaybihii hore ee buugga waxaa ka mid ah meelaha uu soo qaatay gefka laga galay taariikhda baa ka mid ah meelaha uu tusmaystay ee tusmada ugu jirta buugga bal halka marka gefka laga galay taariikhda buugga maadaama buugga aad akhriday muxuu ka wada halka intuuna cutubka koowaad bilaabin cabdiraxmaan wuxuu yiri wuxuu sameeyay gafafka laga galay taariikhda mee oo hordhaca ku xiga wuxuu soo qaadanayaa wuxuu sheegayaa in ay jiraan gafaf badan oo taariikhda laga galay ninba sidoo doonaha oo galo wuxuu ku leeyahay marka uu qodobeynaya 4 qodob buu noo sheegayaa uu leeyahay kow ugu horeyso xulasho waxaa jirta dad baa raba inay taariikh qoraan ama waxay leeyihiin taariikh baan qoraynaa xilli loon ka qoraynaa dhacdada xilli ay dhacdaan ka qoraynaa kadib dhacdadii say tahay oo ma wada sheegayaan dhacdadii wixii dhacay waxay ku sameynayaan sida iyagu rabaan bay wax uga xulanayaan waxay ahayd dabcan xulashay ku sameynayaan oo dhacdadii say ahayd oo ogama sheekeynayaan sida iyagu rabaan bay uga xulanayaan inta ay rabaan sidoo kale iska indhatir
axmed adoo kusii soconaya gafka laga galay taariikhda buuggu ku qoran wuxuu yidhi gafafka laga galay taariikhda didna wuxuu ku qeexay 4 qodob oo ugu horeyso xulasho iskandatir magac biis iyo khalad u turjumid marka runtii way dhacaan intaasba way dhacaan oo wuxuu soo qaadanayaa ii sheegeen waqtiyo qoraayadii tusaalahan xulasho kale wuxuu ku leeyahay waa marka qofka qoraagii uu samaynayo ama qoraayadan wax qore ee taariikhda ii sheeg geeska wax ka qora gaar ahaan tan Itoobiya markay taariikh qorayaan waxay sameeyaan xulasho ka sameeyaan ta iyagu xiisanayaan bay qoraan si cadaalad ah dabcan ta xiisay way xulanayaan ti guulaha ta iyagu guul arkaan bay qoranayaan oo ay soo xulanayaan ta kale way iskaga tagayaan sidoo kale wuxuu leeyahay waxa jirta waxa loo iskandatir ku sheegay iskandatirkaas oo in taariikhdan uu qofku una rabin iska dhaafo tuuna rabin inuu sheego ama dadka la wariyo inuu iska dhaafo marka ana waxay soo hosgelaysaa dabcan laga galay taariikhda soo hosgelaysaa dabcan wuxuu ku leeyahay bug waxa ku qoran waxyaalaha la iska indhatir waxa kamid ku leeyahay qarnigii 7 ilaa kii 12 intii u dhaxaysay taariikhdaas dhacday qarnigii 7 ilaa kii 12 wax badan kama qorin qorayada buurleyda ama Itoobiyadan kare qorayada kama qorin halka ay qarnigii 4 ilaa kii 7 ay wax badan ka qoreen marka ma isleedahay dhibka waxa keenay maadaama bulshada Soomaaliyeed aynan ahayn bulsho wax qorta sida lagu yaqaanay marka laga reebo madooyinkii dambe ama haaf qarnigii dambe marka laga reebo taasa keentay in macnaha gaf badan laga galo taariikhdii oo khaasatan halgankii Axmed Gurey wal dhigi karaa taas oo Soomaaliya horta dad wax qoran ma ahayn jirin qarnigan 19 wixii loo soo gaaro marka kan 20aad bilowgii qarnigii 19aad ilaa kan 20aad iyo kan 11aad aan ku jiro Soomaalida inahan ba qoraalkii waxaas loo eegi walaata Carabi xilliga waqtiga qaar ku qor jireen laakiin af qoran ama far qoran oo sax ah Soomaalidu waxay yeelatay 22 marka waxa la dhigi karaa bulshada oo wax qorin oo dadkii rabin wax ka qoraan danahooda ka eegay marka qof kasta dan buu ka leeyahay taariikhda laga qaadan karaa waa la meyraamin karaa waa la dili karaa yani waxa lagu sameyn karaa magac biis oo taariikh wanaagsan adu leedahay sidoo qoraagu sheegay baa lagu tilmaami karaa mid waxshi oo burburo qalalaasa dunida ku soo kordho marka waxa dhan baa la nacladi karaa haddii wax qorin marka dadka wax ku qoraya ee kula ficiltamay adiga ama nolosha ku loolamaysan markay wax ku qoran dadkaasi waxay ka dhigayaan wax nacladan Axmed aad iyo aad baan u mahadsan tahay si fiican waxaad u soo sharaxday gafka laga galay taariikhda adoo waliba u qaybiyay xulashada iyo iskandatir iyo magac biis iyo khalad u turjumid lagu sameeyay taariikhda haatan waxaan gelaynaa cutubkii koobaad cutubka koobaad dib u milicsiga taariikhda iyo ka bilowdaa dana khaldanayn halkaas marka maxay noqonaysaa cutubkan koobaad buugga Imaam Axmed Gurey oo qoray Cabdiraxmaan Khaldir Shariif Cali Catoosh qoraagu wuxuu marka horta fikir wanaagsan weeyaan inuu cutubka koobaad u doorto dib u milicsiga taariikhdii ka horreysay halgamaaga ama imaamka oo wuxuu soo dhaweynayaa fahamka buugga fahamka halganka imaamka iyo fahamka akhristaan yusoo soo dhaweynaya oo dabcan waxan waa soo taxnay taariikh soo taxan buu imaamka Axmed Gurey dhinac iyo dhanka ka biiray ama dhaxda kaga soo biiray marka tii ka horreysay in qofkii buugga akhrisanayay fahmo ba qasab si uu tan u sii fahmo si fiican yani ugu sii fahmo marka wuxuu leeyahay waxaa jirtay taariikh ka horreysay tan halganka Axmed Gurey oo ahayd tii ku dhalisay isaga qudhiis inuu halgan qayb ka noqdo waayo halganka Axmed marka waxa la karaa halgankan Axmed Gurey muna bilaabin halgankan Axmed Gurey qaybta ka ma bilaabin wuxuu haawn qof qayb ka halgan taxane ama halgan ummadeed oo soo socday marka waxa jirtay taariikho hore oo uu sheegayo qoraagu si fiican oo kala dhigayo buugga cutubkiisa koobaad marka dib milicsigu wuxuu ku leeyahay waa taariikhdii ka horreysay halganka iyo sida ku soo bilaabatay iyo boqortooyinkii hore ee soo jiray iyo loolamadii ka soo dhaxdhacay
boqortooyinkii muslimiinta waddankan qaybta ka ahaa taariikhdiisa marka Axmed Gurey cutubka koobaad waxaa kaloo uu ku soo qaatay qoraaga buugu sababihii sahlay fiditaanka diinta islaamka ee geeska Afrika iyo maxaan ku dhahdaa soo gelitaankii bilowgiiba soo gelitaankii diinta islaamka ee geeska Afrika arrimaha marka maxaa dhaliyay halkaas warbixin naga sii kooban waxaa jirtay buugga in horta kaliya taariikh ummadeed kuma qorro xataa diinteena qayb ka wax badan oo muhiim u ah buu qof ka baran karaya taariikhdeeda tusaale ahaan bilowgii soo gelitaanka diinta islaamka geeska Afrika baa ku jirta cutubka koowaad sidee ku soo gashay buu wuxuu sharaxayaa si wanaagsan oo kooban weliba waxa uu nisbeynayaa qoraagu in ay sabab u ahayd in diinta islaamku ay geeska Afrika soo gasho bilowgii asxaabtii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu nabigu ku yiri u hijrooda dhulkaas xabashida waayo waxa jooga boqor cadaalad badan marka uu jeeday nabigu sallallahu alayhi wasallam boqor Axmed Najaashi asxaabtii oo marka magangeliyo doon ahayd oo marka dacwad diineed shaqo ku lahayn ama shaqo diineed wadin oo nafahooda oo la cararaya baa hadalkii nabiga ku soo baxay dawladeed waxay yimaadeen waxay soo galeen geeska Afrika oo saylac ka soo galaan kadib boqorkii iyo dhulkiisa way yimaadaan halkaas iyagoo islaam imanayaan dawladeed halkaas bay ka bilaabanaysaa ay sheegeen waayo dadka ugu horeeyay islaam ah ee geeska soo galay way noqonayaan asxaabtaasi halkaas bay ka bilaabaysaa waxaa dadna ka sii ku xigaysa doodii dheereyd Abdullah bin Rabi'a iyo Amr bin Aas ay la galeen Ja'far bin Talib boqor kurtiisa marka kadib boqorka Ilaahay soo uga dhigaya inuu xitaa diinta islaamka ka qaato marka meelahaas bay ka bilaabaysaa diinta saas nabadda quruxda badan ee magangeliyada ku bilaabaysaa saas bay diinta islaamka ku soo gashay geeska Afrika saas buna buugu ku xusaya chapterka koowaad Axmed haddii aynu ka imaano cutubka koowaad buugga oo si fiican aad u sharaxday oo dib u milicsiga taariikhda sababihii dhaliyay ama sababihii keenay fiditaanka diinta islaamka geeska qaaradda Afrika haddaynu ka imaano hatan waxaynu u gudagalaynaa cutubka labaad oo cutubka labaad wuxuu qoraagu aad si wanaagsan macnaha ugaga hadlay dhalashadii iyo halgankii Axmed Gurey marka dhalashadii iyo halgankii adoo macnaha laba u kala saaraya sharxaad yar oo kooban naga siiya horta waxaynu sharaxayno waxaynu sharxaadda ka soo saarayno waa buugga cutubka labaad waxa uu ku cutubaystay qoraagu bilowgii halgankii Imaam Axmed Gurey iyo xoreyntii dhulka iyo imaaradadii muslimka Axmed Gurey deedna wuxuu ka bilaabayaa dhalashadiisii iyo dhalinyaronimadiisii waxa uu qoraagu buuggiisa ku xusay in Axmed Gurey ku dhashay magaalada Hobot meel u dhaxaysa Herar iyo qalcadda ama Jallasa meel uu ku sheegay marka meesha ku dhashay Hobot buu ku dhashay marka Hobot waa meel u dhaxaysa sidoo ku sheegay qoraagu buugga Herar iyo Jallasa marka dabadeed uu soo kici tamaa halkaas ku dhashaa didna wuxuu ku soo barbaaraa ku soo kici tamaa suuq ka muuqata buugga saylac halkaas uu ugu dambeynta Axmed Gurey nasiib u yeeshay inuu guursado amiirkii magaalada saylac gabadhiisii amiir Maxfuud gabadhiisii Dalwanbara marka Dalwanbara lahayd dibadna halkaas buu ka dhaxlaa sumcad khibrad ciidan khibrad maamul iyo ciidanba si fiican baad yaad Axmed inoogu sharaxday waxaan ku guda jirnaa buugga Axmed Gurey Imaam Axmed Gurey oo uu qoray Catosh ninka lagu magacaabo buugga waa buugga aynu toddobaadkan aynu bulshada u gudbinayno nuxurka iyo taariikhda iyo wuxuu ku saabsan yahay buuggani cutubka labaad ee buuggu waxay xoogga saaraysaa saa sheegtayba dhalashadii iyo halgankii Imaam Axmed Gurey marka
maadaama aad soo sharaxday dhalashadii iyo halgankii iyo meesha ku dhashay iyo halgankii Axmed Gurey taariikhda uu dhashay su-aasha waxaan rabay inaan ku weydiiyo taariikhda uu dhashay ma la isku waafaqsan yahay mise la garanayaa taariikhdu dhashay Axmed Gurey sanad guuleeto dhashay dood kama taagno inta badan waqtan arkay anu kan la qudhiis buugta buu yani uma kala tufaya ha aadiyad marka Axmed Gurey waxa uu dhashay 1560 magaalada Hawd ku dhashay 1560 halkaas buu dhashay marka okay Axmed aad iyo aad baad mahadsantahay taa waxay ahayd dhalashadii iyo halgankii imaam Axmed Gurey baahad laakiin su'aasha meesha su'aashu ka taagan tahay waxa weeyaan waxa aad la isugu khilaafsan yahay waliba si xoog ah la isugu khilaafsan yahay isirka iyo qoomiyadda uu ka soo jeedo imaam Axmed Gurey qolaba waxay sheegtaa in Axmed Gurey uu anfar ka soo jeeday qaar inuu Soomaali ka soo jeeday qaar inuu uraaga ka soo jeeday iyo qaarkood oo laga yaabo inay carab ay halka ay madaxa u saaraan haddaba su'aashan doonaya inaad nooga jawaabto waxa weeyaan imaam Axmed Gurey halkee ka soo jeeday isirkiisu yuu ahaa ma Soomaali buu ahaa ma anfar buu ahaa su'aashaas nooga jawaab su'aashan waxa ka mid ah su'aalaha aan si toos ah loo jawaabi karin tusaalahan buugga dib ugu noqono imaam Axmed Gurey carabtu waxay dhahan Axmed Ibrahim Al-Qaasi Soomaalidu waxay dhahdaan Axmed Gurey ha qoliyaha xabashada waxay dhahan Axmed Garayn bay dhahan ha dabcan ha buug inta ay ku qoran yihiin Axmed Gurey waa Axmed Gurey dhalashadiisa yani isirka qoomiyadiisa waxa in la ogaado waxa hareeyay ama qariyay fikirkiisa diiniga ee uu halgamay waayo Axmed Gurey haduu qof Soomaaliyan ku halgamayo oo qadiyad Soomaaliyeed ku halgamayo ma qarsoomeen saxda halka wax yar aan ka weydiiyo macnaha ma waxa leedahay isirka iyo meesha uu ka soo jeedo imaam Axmed Gurey inay muran gasho waxa sabab u ah aragtidii halgan oo maadaama uu nin halgan u jeedo oo diin faafinayo oo diinta Ilaahay kor yeelaya ma ahayn isugu xooga ma saareenin cid uu ka soo jeeday iyo waxaas iyo dhul doonna ma ha horta Axmed Gurey qoomiyadiisa waxa qariyaysan oo sheegay ama fikirku u halgamay si fiican waayo wuxuu ahaa nin u halgamay ku halgamay fikir diini ah oo difaacaya diinta Islaamka taas sababtay in uu ay ka qarab dagaalamaan ama ay noqdaan ishaga dadka la halgamayo dadka kooban qoomiyado fara badan oo kaliya Soomaali ahayn iyadoo dana taas jirto waxa jirta buug hordhiciisu yahay ama soo xiganayo qudhiisa buugan imaam Axmed Gurey oo leh ereyga Soomaali isticmaalkiisa waxa noogu waxa la maqlay markii horeysay dhamaadkii qarniga 15aad ma ereyga Soomaali isticmaalkiisa gabigiisa adeegsigiisa waxa la maqlay ereyga Soomaali isticmaalkiisa waxa la maqlay dhamaadkii qarniga 15aad oo ahayd markii uu Axmed Gurey la wareegay hogaaminta halganka soo taxnaa markii Axmed Gurey yani amiirka noqday muslimiintii Saylac iyo Cadal la wareegay xukunkaadii baa horta Soomaali ereyga adeegsiga Soomaali la maqlay taas marka wuxuu ku leeyahay qoraagas buuga qoraaga Carbeed oo markii hore ay yani hogaaminta muslimiinta ay hagayeen rag ah ka soo jeeda qoysas Carbeed marka markii horeysay bay Soomaali halgankii u qabatay buu isugu leeyahay yani qaraya qoraagaas Dr. Rajab buugana imaam Axmed Gurey ku qoran sidoo kale waxa kale loo aragtay inuu xoojinaysa inuu Axmed Gurey Soomaali ahaa ciidankii u fara badnaa ku dagaalamayay waxay u badnaayeen Soomaali mid kale oo noo cadeynaysa in Soomaali Axmed Gurey Soomaali ahaa nin Soomaaliyeed ahaa waxa sheegaysa in uu qabiiladii Soomaaliyeed herar ag deganaa iyo kuwii ka durugsanaaba herar inuu u dirsaday waraaqo codsiya oo ah inay halganka la soo galaan la dagan dabcan ha
marka runtii marka waxyaalaha la isku soo xiriiriyo la isku gegeeyo Axmed Gurey wuxuu ku soo baxayaa nin Soomaaliya waxaan isoo gudbaynaa cutubka afraad ee buugga inuu adoo og in cutub aynu u soo falanqeynay cutubka afraad ee buugga waxaan doonayaa inaan isdul taago waxaad ka soo sheekaysay halgankii dagaaladii uu galay ujeedkii maxaan ku rahdaa Imaam Axmed Gurey waxaan rabaa inaan ku weydiiyo buuggu maadaama uu ka sheekeynayo taariikhdii Imaam Axmed Gurey guushii ugu weyneed ee uu imaamku ama Axmed Gurey uu gaaray maxay ahayd horta 15 sano oo halgamaagu hogaaminaya geeska Afrika guulo badan oo isdaba joog ah oo waxtar jiritaankeena ilaa maanta u leh buu soo gaaray mid baase sheegan oo ah buuggu ku qoran qoraaga buuggan ugu raacsan yahay filaya oo ah dagaalkii uu la galay Lamna Dangal ee ka dhacay gobolka Tigreega dagaalka caanka ee loo Shimbira Koore dabcan dagaalkaas guushii waxaa soo hor fadhiistay laba ciidan oo runtii kala tiro badan dabcan ha Axmed Gurey wuxuu watay 16,000 may 12,556 qof watay 12,556 qof oo askar watay halka qolada kale ma boqortooyadii Solomon Dynasty ama uu hogaaminayay Lamna Dangal uu la soo shir goob yimaaday 116,000 oo nin tira aad u soo dheer weeyaan طبعا وواحد يعني أنا لما ليسن كريم نينكي وحكوا هذا يسال إيه كنا إيش جين كونقف هذينا كبضنين والله بكون قفين هل كي عسكري أحمد قري وتو وحكوا هذا يسال صح مركو يرتي بقلبات دقة بسنة مركو أو يرتي عندنا الله درين بقلبات قبل سنة مركا دقال كي وضعي حلي سلا صباحا دبادات بو مركز سلا صباح كدي ولا تكذبوا بالله دقالكو سبوكا كو حسن والله يسومر ريبانين مريض ديغلا لا kala furtaa runtii madaxa yaa la kala furtay madaxii baa tarbeel noqday la iska gooyay dhaawacii baa runtii meeshu waxay noqotay meel aan la sawir lagu bixin karin yani 216 iyo 12,560 qof meesha isku fara saareen waliba dagaal askara meesha isku fara dagaal seefa iyo warama ah mashaqada ka dhacay soo ognahay no dagaalkii oo saa u socdaa buu ilaahay guusha raaciya mintidiintii Axmed Gurey nimankii halgamay guushaas baa ugu weyneed guushii Axmed Gurey halgankiisii dagaalada gala taas ugu weyneed waana tii sababtay inuu qab jabto boqortooyadii Solomon Dynasty inay qab jabto inay halkaas bay ku dhamaataa sabab ku xusan baadii uu ka qaadi jiray boqornimada Dangal boqortooyinkii yaraa ee muslimiinta heer xataa waxa ku jirtay boqortooyinka baada laga qaadi jiray waxa kamid ah boqortooyadii yaraa hadiya oo markay sanadka booqanayaan boqorka Lamna Dangal u sii qaadi jiray gabadh marka waxaas soo afjar dagaalkaasi waxa halkaas baa yani qabkii ku yaraaday Lamna Dangal halkaas bay awoodii Solomon Dynasty muddo soo taxnayd dhulka ku tagtay oo loogu bartay marka guushaas ugu weyneed baan dhigi karaa Axmed Gurey dagaalkiisa okay Axmed maadaama oo si fiican aad noogu sharaxday dagaalkii ugu weynaa ee Imaam Axmed Gurey uu galay oo Shimbira Koore la yiraahdo sida buugga ku qoran waxaad ogtahay wax waliba saameyn baa ka dhashay marka saameynta ugu weyneed ee dagaalkan ama halgankii Imaam Axmed Gurey ka dhashay muxuu ahaa kullay iyadoo qodobaysan bi buugga ku jirtaa sax dagaalkan Shimbira Koore iyo dhammaan dagaaladii ay isla galeen labadii quwadood muslimiinta iyo masiixiyiinta ay kala hogaaminayeen Axmed Gurey iyo boqortooyadii Cadal ee hogaaminayay Imaam Axmed Gurey iyo tii Solomon Dynasty ee hogaaminayay Lamna Dangal iyo markii dambe wiilkiisii Galawados halka Axmed Gurey markii dambe uu bedeli doono Amir Nuur labadaas quwadood waxaa ka dhashay runtii saameyn ballaaran baa ka dhalatay qoraagu si fiican buu qodobeeyaa
ilaa 7 yuu geeyaa marka inagu dabcan 8 ilaa meelahaas uu geeyaa qoraagu waxaanu u daynaynaa akhristaha inuu saameynta akhristo iyo guud ahaanba buugga inuu akhristo inagu buugga ma akhristiyo iyo ratatabanina tala soo qaadan kara waxa weeye kow in damacii dabcan damacii boqortooyadii Solomon University ahayd in ilaa iyo xeebaha dhulka xeebta taasan qabsadaan laba kii ahaa xadaaradii muslimiinta cadal ifaad boqortooyadii ifaad iyo cadal runtii xadaaradahoodii baa meesha ku burburay saameyntan dagaalka hal su'aal aan rabaa inaan taa ku raaciyo halgankii imaam axmed guri hadafku kala ahaa maka gaaray ujeedku kala ahaa halgankan maka gaaray sax walowna yani dhammaystirmin haddana wax badan buu hadafkii halgamaagu ama imaamku hirgalay kow wuxuu yur ka yidhi dadkii rabay inay yani boqortooyadii rabtay inay waxooda inaka nilaqsiyaan ama dadkii dabcan diinta waxaa jirtay in inuu jiray damaca in dhammaan geeska afrika hal diin ka jirto geeska afrika dabcan horta guusha dabcan oo geeska afrika rag baa rabay geeska afrika oo dhan in hal diin ka jirto marka halgamaagu wuxuu ku guuleystay inay geeska afrika hal diin ayna ka jirin oo damci noocaas ah uu meesha ka saaray dabcan oo hanjabiyo dadkii waxaa ku fikirayay marka saameyntu way farabadan yihiin saameynta waxaan u deenaynaa dadka akhristaa buugga in la akhristo yaan rabnaa waxaan u sharaxaynaa inuu usoo kokoobaynaba inuu kala meel uga taabanayno waa in aynu u bidhaabino dadkeeni si ay u akhristaan ugu dhiiradaan buugtii dhalinyarteenu u qoreen si fiican weeyaan kulley waxyaalo fara badan oo muhiim ah baad ka soo hadashay axmed sida aad sheegtayna waxyaalihii aad ka tagtay kulley waxaan filaynaa dadka akhristayaashu markay buuggan sida quruxda badan aad uga sheekaysay markay daawadaan in iyaguna wixii dhiman ay si akhrisan doonaan kolley waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo akhristayaasha iyo bulshadaba aad u sharaxdo qoyskii uu ka dhashay axmed gurey horta axmed gurey inta la og yahay buuggana ku xoosan waxa uu guursaday 3 gabdhood oo ugu horeyso dalwan bara gabadhii amiir maxfuud amiirkii magaalada Saylac sidoo kale buugga waxaa ku xusan in inuu dhalay 3 wiil oo tafiirtii ahayd imaamka inuu buugga kuma qoro axmed guri hooyadii kuma arag waan jeclaa qoraagu markuu qoyska imaamka ka sheekeynayo inuu ku soo daro axmed guri hooyadii kastoo laga yaabo dee meelihii uu ka soo xigtay inuu ka waayay maadaama buuggan uu sida uu cato sheegay uu dhigaal horey loo qoray uu ka badankood ka soo xigtay dabcan asna baadhis kooban uu ka qoray buugga marka intaas baa qoyska axmed guri intaas ka koobnaayeen 3 xaas nolosha ku guursaday iyo 3 wiil oo dhalay baa ku qoran buugga intaas ka koobnaayeen qoyskii axmed guri si fiican baad u sharaxday su'aasha kale aan rabay inaan iyadana ku weydiiyo waxa weeyaan buuggu qoraagu magacyada xaasaska imaamka iyo magacyada wiilasha imaamka waxaan u deenaynaa inay buugga ka dhex akhristaan dadkan daawani dabcan aan weli akhrisan buugga waayo buugga waxaa loo qoray catosh wuxuu qoray in la akhriyo qoray marka dadkaasaan u deenaynaa in ay doontaan magacii bal maxaa loo bixin karaa ama waa kuma wiilasha imaam axmed guri magacyadood marka qorayaasha waxaan u deenaynaa daawadayaasha qoraa waayo iyaku u qoray in akhristaan buugga haddii aynu kusii soconno buuggu qoraagu runtii saas soo sheegtay farshaxan aad u qurux badan buugga ayuu u qoray talooyin baa jira buugga uu soo jeedinayo oo buugga qaybtiisa dambe ee gunaanadka ku qoran talooyinka maxaa ka mid ah atoosh markii buugga soo afmeerayay wuxuu ku soo gunaanadaa talooyin oo ugu talagalay dadka buugga akhriya oo in buuggan kala bixiya
ay arkaan waxba dee rabaya inaan akhriyeyni qof walba buugan kala bixiya ama xagga ugu dambe ka gaadhay inuu arko oo akhriyo marka talooyinkan waa kuwa qofkii uu ugu talagalay uu kula hadlay nakayna kula hadlay qof walba oo taariikhda xiiseeya qof walba oo raba in jiritaankan ummadda jiritaanka ummadnimo raba in yani wax ku darsado dabcan talooyin marka waa dhowr talooyinku waa dhowr waxaa laga sheegi karaa wuxuu leeyahay Catooshe qof walba waxaa faran in uu ummadiisa wax u reebo yaa dabcan haa si guud markaan si guud u macnayno wuxuu leeyahay Catooshe waxaa jirta deegaankeena iskuuladu inta badan waa bilaash dadku waxay ku bartaan waxay wax ka soo bartaan oo ka soo baxaan iskuulo dawliya oo dawladdu leedahay waxay u soo gudbaan jaamacado dawliya oo jaamacado marka waxaan ka wadaa 80% dhalinyaradan hadda jaamacadaha ka baxday waxay wax ku soo barteen bilaash si bilaash marka qof wuxuu moodaa inuu bilaash ku bartay laakiin bilaash kuma baran Catooshe wuxuu ku leeyahay qof walba wax soo bartay wuxuu ku soo bartay canshuurtii bulshada oo 93 degmo ee ka kooban yahay canshuurtii laga soo ururiyay buu qof walba waxbarashadiisa yani ka ku helay marka qof walba oo bulshadaas canshuurteeda wax ku bartay weliba ay bareen macallimiin isla canshuurta mushahar looga dhigay waxaa waajib ku ah in ay wax u reebaan bulshadooda wax reebaan dabcan aqoonti ku celiyaan baaris sameeyaan taariikhda inta ka badan raadiyaan tan waa wuxuu ku leeyahay waa koobs wax igu farkama qodno fursad baa la haystaa hadda deegaanka waxaa ka jirta si ka duwan jawi ka duwan jawiga lagu yaqaan qof wax badan baari karaya marka waxaa la garanayaa waxaanu nahay xuduntii Axmed Guri ka bilaabay halganka marka wuxuu leeyahay hawsha gala yani dadaal hala bixiyo yaan la isdhiganin qof walba mas'uuliyadda ku saaran bulshadaada inaad u guddo inaad ka gudato waajibaadka ku saaran Axmed aad iyo aad baan mahadsan tahay kolley waxaad aad si qoto dheer aad u sii faahfaahisay talooyinkii lixda ahaa ama qaybo ka mid ah ee qoraalku soo jeediyey afartii cutub bay ahaayeen talooyinkan buuga ku soo afbeeray waxaa ku jirta mid muhiim u ah runtii deegaanka gaar ahaan dawladda goobaha waxbarashada baa talooyinkan uu si khaas ah mid ka mid ah u siinaya in yani taariikhdani ugu horeysa buuggan Axmed Guri hadda gacanta ku hayo in lagu dhigo dugsiyada oo 8 ilaa 9 galaaska fasalka 8 wixii ka hooseeya ee loo gaaro ilaa 1 inta u dhaxaysa dastuurka dalku wuxuu xaq u siinayaa deegaanka in dadku yani taariikhdooda ay isbaraan iyagoo ay macna taariikhdooda ay dabcan ay daraaseeyaan qortaan dabcan isbaraan oo ilaashadaan marka qortana sanadkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa sanadkii ugu horeeyay manhajkeena dabcan gacanteena ku qoran sanadkii waxbarasho marka xaq waxayna loo siiyey ama xaq waxaan u leenahay 8 ilaa 9 inaynu ku qoranno marka inagoo fursadda ka faa'iideysanayna qoraagu wuxuu leeyahay xafiiska waxbarashada iyo hay'adaha waxbarashada guud ahaanba in ay yani buugaagta taariikhiga ku daraan waxaynu qoranayno oo dadkeena la baro si fiican Axmed saad ogtahay baa buug kasta oo la qoro boqolkiiba boqol ma saxsano marka laga yimaado kitaabka Alle subhanahu wa ta'ala sidaa daraadeed buuggan maadaama aad marar kala duwan aad isha mariso si fiican aad u akhriday maxaa ammaanood u haysaa maxaase dhaliil ah ood u soo jeedinaysaa qoraaga buugga iyo buuggaba ugu horeyn halka waxaan ka salaamayaa qoraaga buugga Cabdiraxmaan Khaldir Shariif Cali runtii si guud wuxuu u ammaanan yahay Cabdiraxmaan inuu isixil qaamo inuu taariikhdii geeska ama taariikhdii ummadeena inuu weelaayo si guud ugu ammaanan yahay runtii waan ku bogaadinayaa inuu halka kaga hadhina
waan kula talinayaa oo sii wado runtii baaris fiican soo saarista runtii inuu halkaa ka sii wado sida lamid ah innaka inoogula talinaya inaynu halkaa ka sii wadno buuggiisa si lamid ah buuggiisa oo kale ina waxaan uga talinaya inuu halkaas ka sii wado ta labaad waxaan ku ammaanayaa kow xogta siduu usoo koobay xogta siduu meeluhu usoo ururiyey xogta buugga ku qoran sidii xaqiiqada يعني وصلاحيا لكن هذا بوغن wuxuu ku soo koobay intii ugu muhiimsanayd sidoo uu soo koobay sidoo xaqiiqada waleeta xogta uu soo ururiyay xaqiiqada u salaaxayaan iyo xogtan uu baarista ku helay halka uu ka keenay sidoo inoogu sheegay atoosh wuxuu ku amaanay inuu buug nooga dhigin waxa la yiri Axmed Wiri saasaas baa waxa la yiri saan baa waxa la yiri oo waxaan innaka dhaqan noo soo ah in waxa la yidhaan marka xog walba uu buuggiisa ku soo dhax qaato dabcan wuxuu sheegayaa halka keen salkeedii hadda taas baan macnaha ku keenay sababtaana buugta taariikhda waxyaalaha maadaama buugta kale inay ka culus yihiin baan muddaa taariikhda marka waxyaalaha beenta laga sheegi karin marka saa sheegtay buugga macnaha wuxuu ka ilaaliyay waxaan ay ugu yaraan macnaha culimadu qiila waqaala oo sidaas la yiri kana la yiri laakiin taa beddelkeeda wuxuu soo qaatay meelo badan dhigaal fara badan oo laga sameeyay qoraal fara badan oo laga sameeyay oo ka soo xigtay wali kuwoodii ugu xaqiiqada ugu dhawaa kuwa ka soo qaatay xitaa kuwa ka soo xiganayo wax ka soo xiganayo waa kuwa xaqiiqada marka uu isleeyahay ugu fiican yihiin xaqiiqadan way ugu dhow kuwa kale sidoo kale wuxuu ku amaanan yahay in ayna qaadin nidaam cadifad inayna qaadin qoraal oo uuna yani wixiiba yani sheegeen يعني ونرى هبلين قرح بدن وجود وصل مركا وحكى الله وقع معناه هي عطاش إنه بوجيس سيف عنه ترتيبي مركو قري سيف عنه ترتيبي بوجا وحلقة اللي كرا حكت بوجا حكت قرح بانكو قرنت هاي سيد في عن وقت لوج اللي مهم كهرنتي قفل بنا تهاي إنه آخرته وحاول دليش كوباد أنا هاي وحوي كأحمد نورهان إن xogta qiimaha badan ee culus lagu qoray xaashiyo runtii iyo jaldi ana cimri badan lahayn oo marka xaashida tayada xaashida jaldi cimri badan male si fiican mar hadda buugga aad u sii haysato hal saac oo kale aad wado waxaad arkaysaa qoraalkii oo jaldiga oo xataa xariiqmaya oo dabcan jaldigu ma tayasno oo aad buu jilicsan yahay durbana uu jeexmaya sidoo kale xaashidu waa tucad oo in badan oo dadkeena kamid ah oo jecel in buug akhristaan xaashida cad wax kuma akhristaan sidoo kale waxaa kaloo jirta markuu isticmaalayo markuu sheegayo waxyaaluhu soo xigtay tixraaca wuxuu adeegsadaa laba eray oo midna carabiya midna ingiriisiya oo macnaha qaybta tusmada dabcan qaybaha ugu dambeeya qaybta ugu dambeeya buugga wuxuu adeegsadaa ay sheegeen reference iyo marjac labadaas soo qaata dabcan laba eray oo Soomaaliyeed marka oo wuxuu kaga maarmi karayay tixraac halkuu marjac iyo reference inoogu soo qoray wuxuu kaga maarmi karay tixraac marka wada mahsan macnaha waxaad u socotaa halka waxay ahayd inuu adeegsado loo afka hooyo oo tixraac yiraahdo maadaama dad fara badan aynan dabcan maadaama luqadda lagu qariyo af buuggan uu yahay isha tastaxaad tan waxay noqon kartaa dhaliil ani iyo gaar noqon karaysaa tan saddex oo aan ku dhaliilay si gaar ah qoraal buuggan qiimaha badan xogtan inta la ku xambaarsan waxtarka badan buuggan qowmiga si kala u dhig hadalkay runtii qiimaha lagu gadayo oo suuqa ku yaalo waxa la dhihi karaa waa bilaash qiimaha macnaha buugga ku qoran ee suuqa lagu iibinayo qiimaha lacageed buugga lagu iibinayo oo ma qalmo baan dhihi karaa buug okay hadda Axmed halka mar aan yara dul istaago hadalkaaga dhalishan saddexaad ee buugga u soo jeedisay waxaad leedahay qiimaha buugga ku qoran ee lagu iibgeeyay maadaama buuggu yahay buug taariikheed waa uu ka macnaha qiimuhu uu ka hooseeyaa qiimihii rasmiga macquulka in lagu gado aad iyo horta khiyaarka xaas kale qoraaga xaq buu leeyahay riyaal buu gadi karayaa si la mid ah bilaash buu ku bixin karaa laakiin
waxaan ognahay wixii la qiimeeyaa qiimaysma waxaan ognahay buugaag sheeka faneedaha oo wax ay la jiraan ay uusan jirin oo yacni qiimaha lacageed ee lagu gadayo qiimo u yeelay iminka buuggan imaam axmed gurey runtii waa buug qawmi ah taariikh culus baa ku qoran wax badan buu qofka bilow aas u noqon karaa qof kastoo raba inuu taariikhda baaris ku sameeyo axmed gurey wax badan buu tixraac uga helayaa buuggan marka buuggii noocaas ah in 250 lagu gabo birta waan saluugay okay marka miyaynan dhihi karin sicir barar baa dabada ka wadaa oo buugta in la qaaleeyo baad dhiiri gelinaysaa ni horta sida banaanba buugteen kan buuggan axmed gurey wuxuu la mid yahay buugta deegaanka lagu qoro oo dhalinyarteennan buugta qorta buugtoodu uu ka qiimo jaban yahay sida banaanba ma garanaya sabab keentay buugtan kale deegaanka loo iib keeno marka waxaan halkan kula talinayaa dhalinyarta wax qoraysa cid walba oo rabta inay wax qorto waliba bulshada wax muhiimsan u qorta in ay buuggooda qiimeeyaan qiimo u yeelaan ceeb maaha inaad buuggaada qaali ka axmed waxaan rabaa inaan weydiiyo buugta kale ee deegaanka la keenay loo soo iibgeeyo ka yimaada tusaale ahaan oo kale somaliland ama puntland ama muqdisho inooga yimaada maxay kaga qaalisan yihiin buugteena deegaanka lagu qoro horta waa su-aal aan isweydiiyo anu waxaan ahay waxaan ka mid dadkan koobanaya iska yareeraya buugta gagata hadday fursad helaan buugta deegaanka dhalinyarta deegaanka joogta buugta ay qoraan 3 jibaar way ka qiimo hooseeyaan buugta laga keeno buugta deegaanka loo iib keeno nio sababtan waxaan u aanay hal baan dadka bartida facebook xataa su-aashan waa soo dhigay dabcan adoo su-aashan weydiinaya bulshada haye haddaba jawaabtii ugu macquulsaneed eed ka hesho akhristayaasha maxay ahayd horta qaar iska mid bahayeenoo qaar waxay inta badan u sheegeen tayada buugga dabcan waa laga tayo fiican yahay kulliyiin marka tayadii baa u baahan in laisla qeexo ma jaldiga ma xogta buugga qoran baa waa mayna qeexayn laakiin anu hal baan u nisbaynaya kow in dhalinyartan deegaanka wax qorta inaynan buuggan ay qoreen buugta inay qoreen aynan macaash ka raadin okay miyana isdhihi karin ceeb u arkaanba may ceeb bay u arkaanba buuggii ay qoreen in ay macaash ka raadiyeen ceeb bay u arkaan waxyaalaha u baahan in la buriyo waxyaalaha u baahan qofkii si uu imika qofka qoraan waxa dhiirigelin ugu filan in buuggiisa laga gato okay marka axmed waxaad leedahay buugga qofku markuu waqti geliyo ceeb ma aha in qofku qiimo wanaagsan macnaa qiimo sare uu ku si macash uga raadiyo ceeb ooma arko anu ceeb ooma arko qofka dhalinyarta ah intuu dadaal bixiyo buug qora waqti badan ka qaato kadib qiimo isagu uu rabo qaaliga ha noqday ku gada waayo qofku markuu buug qoro dhiirigelinta ugu horeysa waa in laga gato buuggiisa hambalyo oo maasan tahay hore socdaas waxa iska sheeka raqiis dhiirigelinta ugu fiican waa inaan kaa gato buuggiina waa in lagaa gato qiimo aad raali ka tahay waayo buug wuxuu gelayaa daabacad wuxuu gelayaa isheg suuq geyn oo dad baa raba in wax loo dul saaro markaad usii geysanayso marka adiga raba inaad isheg waxaad ahaa inaad ka hesho axmed kolley aniga waxaa ila qumaan kolley aragti ahaan كل أدو أركتها واد صار دكتي صوبت بوقت كله لو يمكن الدجان كأي وقالسيهين بوقت الدجان كنا لو قرأ ولي بعض يوم تلمامي إن أين عيب هين إن بوق معاش لك الراديو حسيت هاتي كل أنا وحن قبا سؤال شيء أنا بذكر دعوة عن دينه صوبت بوقت لو يمكن الدجان أي وقالسيهين الدجان بوقت الدجان كنا لو قرأ سؤال شيء كل وحن شلون أنا سيدو كلام ضعفنا دعوة يجونا رأي وذين كسر ديبتان سؤال ugu dambeys yani barnaamijka ku soo xireyno axmed rabo inaan ku weydiiyo buuggiisa fiican baad u sharaxday yaad u faaqiday meelo badan baad iska taagtay dadka daawadayaasha maxaad u soo jeedinaysaa ugu horeyn waxaan akhristayaasha aan dadka na daawanaya ama laga yaabo inay fursad helaan inay barnaamijkan daawadaan kow waxaan kula talinayaa inay buugga raadsadaan buugga iyo Axmed Gurey inay raadsadaan
buugga inay raadsadaan akhriyaan runtii wax xog badan baa ku qoran Catoosh dadaal buu bixiyey wax badan baa qofka yani uu ka faa'iideeyaa hadduu buugga helo sidaas sidoo kale waxaan qof walba dhalinyar deegaanka kula talinayaa inuu caado ka yeesho akhriska inuu akhriska caado ka yeesho wax akhriyo Catooshna waxaan gambaan ka bogaadinayaa waan hambalyeynaya mar labaad buuggan wuxuu marayaa daawacadii labaad tii saddexaad baanu kaa sugaynaa waad mahadsantahay guud ahaan daawadayaal intaa waxayna ugu eg qaybta koowaad ee barnaamijka faallada akhristaha waxaana marti inoogu ahaa Axmed Nuur oo ka mid ah dhalinyarada iyagu jecel akhriska barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiweli Suro Maxamed intayna waqti kale ayna ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah dhammaan aniga iyo asxaabta igala qayb qaatay barnaamijkan waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo